بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرامج كيني دلدي سؤال بكرة سؤال جبتين برا تي في ما أنت وحامرتي إنه هو إنجنير عبد الساق موسى دبلاوي وإنجنير برتي علمي جبارها كنا شقية هذا أنا لحجوج نبرتيسا إنجنير عبد الساق سلو ودوا هذا ما سنت عبد الله بوغشيدين كل سلو هذا برتيد وما سنت يقولون هاي waxaan wax ka weydiinaynaa habkii aad beertan aad markaa sameeysay aad u qtaracday ama aad u keentay inaad maxaa kugu dhiirigeliyay inaad beertan sameyso waxay ahayd markaan jaamacadda dhameeyay isla markii waxaan bilaabay 2022 markii la marayay bisha markii Agoosto markii ahayd beertan bilawnay waxaan ugu dhiirigeliyay markaan arkay suuqa baahida ka jirta ee qudaarta oo qudaar aan wadanka ku beeri karno oo hadda meeshan kaaga muuqdo inaan ku beernay in dibadda laga soo dhoofinayo sida yaanyada oo kaleeto yaanyo sawirsaanka iyo qudaar kale oo aad u fara badan oo dibadda laga soo dhoofinayo aragnay taas waxaan ugu dhiirigelisay in anagana wadankii bal isku dayno ka faa'iideysano cilmiga aan baranay runtii aniga waxaan dhameeyay jaamacadda Zamzam ee magaalada Muqdisho taasoo soo saartay arday badan oo baratay cilmiga beeraha laga soo bilaabo dufcadii koowaad ilaa dufcadii lixaad hadda dhameysay anaga waxaan dufcadii shanaad waxa moodaa dufcadahaas lixda dufcadood ee dhameysay jaamacadda inay isbedel weyn dalka ku soo kordhiyeen ana maartay beerahan casriga ah oo beeraha dadan oo greenhouse ka daalad open field ka daalad oo iyadoo la isticmaalayo hanaanka waraabka casriga ee drip irrigation inay wadanka ku soo kordhiyeen jaamacadda Zamzam ayaa looga mahad celinaa adduunka way ka jirtay laakiin Soomaaliya dib u dhac baa ka jiray marka jaamacaddan waxa la dhigi karaa waxay soo saartay jiil revolution ku sameeyay beeraha oo horumari ay soo saartay jaamacadda runtina magaalada Muqdisho daafaheeda gobolada dhexe gobolada waqooyi bari gobolada koonfureed intaba saameynteeda aad looga dareemay isticmaalka waraabkan casriga ah drip irrigation iyo beerahan casriga ah protective cultivation leeyahay ama beeraha dadan leeyahay waa mahadsan tahay injineere hadda waxaan arkaynaa waxa inta kugu beeran yaanyo waxa kale oo ku beeran barbarooni xagaas waxaan ku soo aragnay basbaaski waxaan kale u jeednaa yaanyo miroloodii caadiga ahayd oo dhulkana ka bix jirtay oo de qurux badan markay beeraha ku dhex taalo de beeraha furan ay ku dhex taalo waxa way aad bay isugu cajiiban tahay oo de waxa ka muuqda cudurro badan hadda waa nadiif maxaad ku samaysay oo uga bedeshay qaabkii hore loo abuuri jiray qaabkii hore loo abuuri jiray yaanyada hadda tilmaamtay waxaad ugu duwan tahay yaanyada markii lagu abuurayo beeraha caadiga si traditionalka ama qaab abuurkii markii abuurka la shubo oo soo baxdo dhulka waraabsan ayaa la dhigaa oo kadibna waraab lagu daayaa marka taas hadii waraabka dhinaca u badan kara dhinaca ku yaraa kara dhinaca ku batana dib u keenaa dhinaca ku yaraadana dib u keenaa oo flood irrigation iyo bastiga oo aan laga control karin sidoo kale nafaqada oo aan si uniform loo sii karin ama si isku mid ah hanaanka drip irrigation ka wuxuu caawinaa oo maaragtay si uniform ama si isku mid u gaarsiina hadii aan nafaqada hadii aan biyaha hadii aan buufinta oo qaar kamida sumaha loo isticmaalo earthwormka gooryaanada maaragtay ciidda galo oo dhibaato weyn ku haya beeraha hadii daawada inta la qasalo waraabka loo saaray geed kasto wuxuu helaa xaddiga oo geedkan kala helayo marka saadada ka dareemi karto waa isdii kara kaliya waa waraabkaas uniformka ah iyo nafaqadaas uniformka ah iyo waxa intaas ay ugu duwan tahay iyo ninka la yiraahdo waxyaalo badan oo maaragtay aan dal soo koobi karin bay waxa la isdii karaa wax yar un baa ka taabtay ay ugu duunaa kartaa mid oo lagu beero beeraha caadiga oo oo flood irrigation ka oo ma santahay hadda sidaad hadda sheegtay wax badan aad ka bedesheen sidii loogu beeri jiray xagga sida dripka oo kale daawada la siinayo noocyada oo daawada la isticmaalayo in si uniform loo siiyo waxyaabahaas oo dhan waxay ka muuqdaan tan marka
isbedel ma ku yimid cimrigeeda maadaama markii beeraha ku dhaxtaa loo flood irrigation ama faro irrigation lagu waraabiyo oo ognahay 2 mar ama 3 mar la gurtaa markay ugu badanta marka kana waa hal marba marka meeqa mar ayaa la gura karaa tan yaanyada markii qaabkan loo beero oo systemkan casriga oo modern farming markii loo beero waxa la gura karaa in ka badan inta la guri jiray yaanyada ayaa la gura karaa ilaa 3 bilood waa la gura karaa yaanyada halka yaanyada xaqana aan la gura karin intii ay gaari karto 3 bilood xitaa mararka qaar waa la dhaafi karaa 3 bilood iyo bar way gaaraysaa marka gurashada kaliya oo laga hadlayo sidoo kale xagga adkaysinimada iyo cudurrada dulqaadkeedana markiisaan waraab ku helayso maadaama ay caawinayso inay biyo fiican heshay waxa la dhigi karaa yaanyada badanaa waxa dilo oo gurashada soo yareeyo oo life cycle-ka soo yareeyo inuu waraabka inuu ku yaraado oo xaaladda ay gasho shock oo water shock ay gasho tan water shock ma galayso oo waa biyaha markasta waxay u qaadanaysaa si isku mid ah markasta biyaha u qaadanayaan taas waxa la dhigi karaa gurashadana waa maaragtay production-kana way badisay wax soo saarkii waqtigana way badisay lacagtii galeysana waa ka yaraanaysaa markaas oo qarashkii waraabka caadiga ay biyihii badnaa ka galay iyo dhulka cusbo ka noqonay waxaas oo dhan way ka yaraanaysaa wax dhan wax controlan waa